waxaan joogaa Mareykanka xaas ayaa ii joogta Afrika hal cunug ayay ii haysaa muddo 2 sano ahna uma iman reerka oo waan ka soo maqanahay xaaskayga ayaa uur yeelatay anoo ka soo maqan marka ilmahaas aniga aanan caloosha gashan ayaa meesha yimid maxaa ila gudboon xaq ogaatay inaadan adu caloosha gashan antu xaaskaagii bay ahayd firaashkaagii iyo gogashaadii bay ahayd marka 2 sano ka maqnaa oo haday macnuhu tahay mas'ala sharci ah laakiin inuusan ilmahaagii ahayn qaabka laguma garto culimada jumhuurtoodu waxay qabaan maalikiyada shaafiiciyada iyo xanaabiladuba ilmuhu inuu muddo 4 sano gudahood uurka ku jiri karo sidaas daraadeed ninkoo xaaskiisa muddo 4 sano ka maqan ama intay kala tageen ama uu ka dhintay ama uu gogoshiisii ay too uu qabo laakiin aysan muddada kulmin 4 sano gudahood haday ilmo ku dhasho waxay leeyihiin ilmahaas ninkii haweenta qabay baa iska leh haytay sababtu waxay leeyihiin muddada uu ilmuhu uurka ku jiri karo nas ma leh muddada ugu badan hadayna nas lahayna waxa loo noqonayaa bilaha curfiga sida caadada bini aadamka lagu arkay waxa la helay marka fuqahaadii culimadeenu ka hadleen ilmo 4 sano uurka ku jiray baa la helay taraqudni baa soo saaray Walid ibn Muslim baa laga warin wuxuu yiri Malik ibn Anas baa waxaan ku yiri ka waran xadiidka Aisha ay leedahay la taziidu almar'atu fi hamliha ala sanatayn haweentu uurkeeda 2 sano kama siyaado warka Aisha laga sheegay bal Malik oo ka waran Imam Malik markaas ay Malik wuxuu yiri subhanallah ma yaqulu hada ya waay waxa warka dhahay هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت 3 أبطن في 12 سنة وحاولنا ينابو يري يعني هاي أدونتا محمد بن عجلان محمد كذا محمد بن عجلان حاسكيس وهوينay wanaagsan buu yiri oo run iyo wanaag aan ku naqaan ninkeeduna waa nin wanaagsan oo isagana run aan ku naqaano buu 3 ilmood oo qaaday bay mid walba waxay waday buu yiri 4 sano mid bay qaaday 4 sano ku dhashay mid kale qaaday 4 sano ku dhashay mid kale qaaday 4 sano ku dhashay 12 sano waxay ku dhashay meeqa 3 ilmood الإمام الشافعي لفتي سوح ليه بقي محمد بن عجلان في بطن أمه 4 سنين محمد بن عجلان كان لفتيس أوركه هو يدي وحكو شري بول 4 سنة 4 سنة وركو أورشيفها أيور شيء أحمد نوحي أحمد بن حنبل نساء ابن عجلان تحمل 4 سنين بول محمد بن عجلان كان ضمر كيسو 4 سنة بكل دلام بول عادي 4 سنة بودان الماء مسألة مركا ما دام أي دعد الله أركيتها أي فقهاء بدن كودو حيلاهدين مدة جوده إذا هذي هوانتو المكودش المها وحى إسكالة نينكي قبي هدي لفرينا أون لجورسنين مدة كدبنا نينكي فري هدي لجد انتي أون مدة لجورسنين نينكي كد انتي وإسكالة حنفية ذا كدوانا أيجو حيليه أيجو حنفية الله وصلنا إليه مذاهبta afarta waxay isku waafaqsan yihiin 2 sano gudahood ilmaha ku dhashay inuu leeyahay ninkii haweenta qabay ama ninkii ka dhashay ka dhintay ama ninkii furay hadii uusan marka nin uga dambaynin marka ninkaasi muddo dheer baan ka soo maqnaa kuma fillo aad ka soo maqnaatide waa xaaskaagi ilmuhu haduuba ka suuroobi karo muddada gudaheedna ku dhasho waxaad ku inkirtaa ma jiro hadaad rabin Soomaa laga yeeli mahayo anigu meesha ma gashanin socon maaye
ilmuhu nasab iyo abtir buu leeyahay gogashaaduna ku dhash si kale kuma waayi xataa ma dhalin hadaa tiraado laga yeeli maayo kaliya wuxuu ku waayi karaa inaad maxkamad tagto oo aad licaan samayso fi nafyi alwalad ya shanti daaroode suuratu muxuu ahaayay suuratu nuur lagu sheegay soo garanaysaan shanta waa inuu dabada ka maro inuusan ilmahan dhalin markaasuu waladku wuxuu noqonayaa waladul li'aano nasabkii waayaya laakiin si kale nasab kuma waayi karo ma dhalin iyo waa la iga dambeeyay say ku dhici kartaa iyo warka war socon maahay yani DNA-giisa kiisa iskhilaafay nin maalintii bil munasaba Sweden iga soo diray message mushkilo weyn baa haysata buuri islaantii afrikan kaga yimid mudan kala maqnayn markaan xagga geeyay oo wiilkii weynaa laba wiil bay dhashay wiilkii weynaa ayaa DNA-gaygi iyo kiisi waa iskhilaafay buuri balo والبهار نفاي هيسب ورده ماشن DNA ما غلو DNA ga sideedaba ilma nasabkii laguma anfiyo laana dhaahirka waxa way ilmahan aad u dhashay waay dhaahirka DNA ma anfin karo laakiin DNA ga nasab waa lagu sugi karaa ilma lagu muransan yahay oo kale kee dhalay makan misakan nasabka waa lagu sugi karaa laakiin laguma anfin karayo saas saxiix wallahu a'lam